سولو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك هوري وحن سلام يا رمان بهوي الكلية رجع يدوم أطباء عندكم سلام يا سلام كسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك الله وحن بكم هذا يا سيدة ونحسن أطرح القدم أشرف القدم دول سوق الدشير مواصلة الدجالين حسب الكلية يوتيجروا ورشونيكا سيجارة وحن بكم هذا يا الله أشرف القدم حسب الكلية ولا أنتم أين يوصل تكشف حمدا فلان يصير قروح من لوسا قاسية هذه أبان المهندقية وحكروا المهندقية حفظة الحسن الكلية يبغى نجيب ولا ده فوق وقت يقول لي خارجها وصوري ويا هيا بالك عطف هذا بعد حكم مخمس بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa kaloo iyaga ugu mahadnaqayaa saaxiibadeena xisbiga kulmiye ee inooga fimid gobolada fogfog inooga yimid iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii xisbiga kulmiye maanta noogay maxamed cabdi ismaaciil wadankii uu ku maqan yahay safar shaqo iyo mid shaksi insha allah wuxuu iman doonaa marka ay doorashadu dhacdo insha allah waxay iman doontaa wuxuu soo noqon doonaa marka ay doorashadu ay dhacdo horta noqon doonaa halo ayuu insha allah marka doorashadu dhacdo ayuu soo noqon doonaa soomaalidu waxay tiraahdaa fula xanti bambooya waanu ogsoonahay haddaan nahay hoggaanka xisbiga kulmiye ee waddanka norway in badan baanu joognay waxaanu rajaynaynaa marka uu gudoomiyuhu soo noqdo ee doorashadu garanaysaa ay dhacdo inaanu shirweynihii xisbiga abaabulo oo la iskaga yimaado dhammaan soomaaliya dhammaan waddanka oo dhan goboladiisa laga yimaado oo waxaan intaa ka horeysana waxaynu geli doonaa haddii ilaahayna diyaargarowgii iyo qabaqaabada shirkaha weyn aynu qabsan doono aynu ku dooran ardayda ku dhisi doono haddii aan intaa kaga gudbo mahadnaqii iyo salaantii waxaan kolley waxaan in yar ka odhanayaa asaaska xisbiga kulmiye waxaa la aasaasay 2002 waxaa aasaasay oo salka u dhigay rugcadaas siyaasadeed waa gudoomiyihii ugu muddada dheeraa taariikhda SNM madaxweynihii afraad somaliland mujaahid axmed maxamed maxamuud siraayo ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u siyaadiyo xusniga kulmiye waxaa iskaga dambeeyey 3 mujaahid oo taariikhda somaliland ku suntan min bilow ilaa dhammaad gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee imika maxamed kaahin axmed waxaa taariikhdii somaliland iyo tii SNM oo nool oo socota oo qofa weeyaan ilaahay isaga cimriga iyo caafimaadkaba ha u dheereeyo waxa uu ka nool yahay 4 sargaal SNM bilaabay ee ugu horreeyey uu ka nool yahay markaa xisbiga kulmiye waa xisbiga astaanta somaliland min bilow ilaa dhammaad ku suntan waa taariikhdii halganka waa dib u xoreyntii waa dib u dejintii waa aqoonsigii iyo gobolhadeedii markaa xisbiga kulmiye loo bixi maayo waa xisbi gaamuray oo geed weyn oo noqday haraca oo xididadiisu ay fogaadeen oo dabaylaha iyo wax kasta oo kiciyaarayna waxba yeelin waxaan kolley dadku waa badan yahay soomaalida waxay tiraahdaa war gaaban hadalkeeda gaaban waqtiguna waa igu soo gaaban yahay waxaan leeyahay somaliland guul xisbiga kulmiye guul insha allah waan soo dhaweynayaa aad iyo aad buu wanaagsan yahay odaye ibraahim aw daa-uud hadda waxaan siinayaa safiirka dalkani norway u fadhiya jamhuuriyadda barakeysanay somaliland maxamed aadan li بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتين بان دين سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوق القلاياشة حفلة تن بلعب السن حزب كلمية نوروي
aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa kasoo qaybgelidda aad kasoo qayb gasheen xafladda kan wax yar haddaan ka idhaahdo maadaama safiirkii Somaliland ee Norway aan ahay dhawaana ka yimid waddankii inaan in yaroo warbixina idin siiyo warbixintaydu waxay u badnaanaysaa wixii aan waddanka ku soo arkay waxaan ka soo qayb galay socdaalkii madaxweynaha ee bariga galbeed baa ahaa socdaalkii madaxweynaha ee bariga galbeed ahaa meelo badan baan soo maray dadweyne fara badan baan la kulannay sida xisbiga kulmiye loogu heelan yahay ayaan bariga galbeedba ku soo aragnay meel waliba meesha kale way ka dad badnayd way ka qurux badnayd way ka soo dhaweyn wanaagsan socdaalkaasi wuxuu ahaa sida uu magaciisu ka muuqdo socdaal guula waxaa intaas ii raaca laba qodob oo kale ayaan ka hadli doonaa waxa weeyaan midi nabadda iyo waxaan la yidhaahdo MOU amba is-afgaradkii horudhac ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia wada galay haddaan horreysiiyo is-afgaradkii wuu soo gabagaboobay meel wanaagsan buu marayaa waxaynu filaynaa maalmo aan fogeyn in aynu gaadhno gunteedii oo aynu heshiis taama oo dhan aynu saxaaxno aynu inaguna aqoonsi ku helo Ethiopiana wixii aynu kula ballannay aa ku hesho guul bay noqon doontaa guushaasi lama wada laha waa guul xisbiga kulmiye leeyahay waa guul madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo tiimkiisu ay leeyihiin waxa aynu ognahay wax badan bay adduunyada ka beddeshay MOU-daas waa markii ugu horreysay waa agab diblomaasiyadeed waxaan uga jeedaa waxa weeye diblomaasiyadda Somaliland markii ugu horreysay ee adduunku ku qancaan in Somaliland iyo Soomaaliya ay laba waddan kale yihiin waynu ognahay sida kor ay ugu kacay soo dhaweynta waddankeenu iyo dadka danaynaya waxaa jirta in aynu Muqdisho hadal ka maqallo hadiyo goraale dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadu rabta inay heshiiska Ethiopia u saaxido iyadoo diidan inaynu inagu saaxino laakiin waxaan fariintan caawa u dirayaa waxa weeye waa Cali Geeri Baay nin baa geel ku dhex dhashay aabihii ilaalin jiray markuu aabihii dhintay isagoo 20 jira ayuu wuxuu u qaatay geela inay iyagu leeyihiin markii lagu yidhi waar meesha iskaga tag aabbaha ciidan buu ahaay waa u qaadan waay Cali Geeri Baay baa loo bixiyey waxa weeye Xasan berberaha Somaliland baa annagaa berbera Somaliland waxa ta kale ay ognahay markii taariikhda dib loo raaco Soomaaliya danta laga leeyahay horta ugu horreysa waxa weeyaan berbera marka la yaabi mayno waayo waxay og yihiin in aynu inagu ka miisaan badanayno iyaga marka aynu hello aqoonsi taas oo badda cas oo marinka ay maraan baamushtariga adduunka ee baabalmanta waxay baynu u jiraa waxaan 12 kilomitir ahay waxa markaa miisaankeenii imika xoog buu kacay MOU-du wadamo badan baa waxay diyaar u yihiin maanta Ethiopia ku dhawaaqdo inay iyaguna ku dhawaaqaan guul Somaliland guul haddaan taasoo dhaafo midda dardaaranka aan halkan kaga tegayaa waxa weeye nabaddan iyadana ka hadlaya nabadda waxa weeyaan wax qof waliba u baahan yahay hase ahaatee waxa isweydiinla qof waliba inuu ka qayb qaato miyayna ahayn jawaabtu waa haa markaad qof bini aadam oo agtaada fadhiya aad ula hadasho hadal wanaagsan waa qayb nabadda ka mid a markaad durkiso eed gobol dhan nabad maaragtay kula hadasho soo dhaweyso ee soo waa iyaduna qayb nabadda ka mid a is-ixtiraamku wuxuu ka mid yahay nabadda marka waxaan idinka codsanayaa
dadkiina halkan jooga caawa qof waliba wuxuu ku xidhan dad waxaan idinku codsanayaa inaad la hadashaan waddankii oo inay nabadda ilaashadaan aad fartaan doorashadana inay caqli isticmaalaan nin walba taariikhdiisii wax lagu siiyo Somaliland meel kala goysay maanta marasa cadow badan baynu leenahay waxaa loo baahan yahay inaynu soo jeedno oo hoggaanka cusub ee dambaynu dooranayna mid waddanka ilaalin kara uu yahay mid guulayna gaadhsiin kara uu yahay kaasina waxa weeyaan musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mahadsanid safiir maxamed aadan liilan haddana waxaan ku wareejinayaa oo aan siinayaa guddigihii xisbiga kulmiye laanta Norway oo intiina badanaa malaha hore u aqoon oo inaad caawa inuu way taqaaniintiina kala barataan aan jecelahay waa Axmed Cawad oo inaan saaxiib nahay kala soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحضة سفير هذا يوم مدحضة حسبية يوضياشة يا هبلهن شرفت له مدن يعدي كل جيم بوالد وضع سلامة يا إلهي بمهله وحن هذا السلام كشيء كل مية وحول النور ويصوم مري المدن يربي هذا نيسا إلهي وفوقه ليسني عينو رقم ذا هين مرو بكم ذا هين wadamada ama laamaha la tilmaamo ee kamid ah ee baynu kamid ahay haddana aynu kamid nahay alxamdulilah waxaan garanayaa waxaan xusuusanahay halkan inagii lacag ka bixin jirnay sanadkii doorashadii hore dowladda lacag baynu diri jirnay 3 kun oo doolar baynu halkan ka diri jirnay joogtaa hay'adaha dheeraadka mooyaane madaxweynaha maanta madaxweynaha markaad aynu sharaxaynay yaanu ku kulano arrinta ka wada hadalay wuxuu meesha kaliya aan wax ka helaa العنتا اللي كان الله ونوروي أنت وحنان لبدي دور الشيء لبدي المدحتوية الكوه لي لبدي دور الشيء لبدي مدحوينا نوصار أنا لبدي كذا هنشوفه وحصورة كلية لا سبب وقدر يقرب تشوف بدل بيلا شوف بقوله رأي يدور بيسكوتشرا يا تجاي وكاي بقاطي شتى بقول هاي إيرانيين لعك يسكر شكرين يي وساس واحد بيسلي ما لو أنا كلا جرانيني إن إنه هذا بيركل بيننا يسمع سنة ونديوا كل شيء قبل خصوصا قرينا إنه خصوصا يسمع من هذه الميزان وهي أباب كتير ما نعرفه أنا كل النور يعطينا نحل باينا سهران وروما هنقيا بدنا يسفير كنا أي إنه بدلنا وأي حكينا سهران بدلنا وعندي مشتي كرتنا هتكتو محمد نوران ما تكيي جاي تذكر برعش وجاي ما تقول كيي جاي أو بنا كفوارك إذا كيري بسوي يسوي نوجنا وعندي تيجي كرتاي أنا وتيجي لا والله وتيجي لها أنت تيجي كريه والحوصلية عندي تيجي كرتاي نتاج أنت تيجي كرينينا بوليسيga cusub waxa weeyaan qurba jooga qof walba qurbaha jooga cid baa ku xiran sidoo sheegay safiirku qof walba qurbaha jooga in baa ku xiran warinta qof walba inta kugu xiran ka hawlgal say kulmiyo noqon lahaayeen waa ilaahay khayr ka dhigo ilaahay wadankeena ay noo barakeeyo ilaahay nabadana ay noo xasiliyo aad iyo aad baan idin wada salaamaya aynu midnimadeena ilaashano salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mahadsanid waxaa haddana ku wareejinayaa mikrofoonka shakhsi isaguna aad loola soo shaqeeyey oo xisbiga kulmiyaha booliyaashiis ka mid ahaa intaan u geli gudtidayda kale waxa weeye safiirkii hore sulub warsame oo aanu shakhsi ixtiraam iyo wanaag aan loo haynayo بسم الله الرحمن الرحيم قراءة والسلامية الله دورك كلمية آليات والسلامية يجا هيركلي إن هالكان ما تلسكوي مادو عوق دو شقيين دورك ويا كلمية رنتي رجع كذلك يجا والسلامية سفير كان نورس أنا قلت بيسيه سفير كان والسلامية
marxalad waxaanu galnay doorasho kulliba maanta bishu waa 12 bishii tobnaad November 13keedana waxaa loo dareerayaa doorashadii waxa weeye waa marxalad aad u adag weeyaan inuu kulmiyo haddana ku guulaysto ayaanu rajaynaynaa dadaal baa laynooga baahan yahay waa runtii Axmed Cawid 2017 iyo intii ka horeysayba wufuud badan iyo dad badan oo kulmiya ilaa 500 oo nin baa ka degaankiisa oo ka mid ah intaba waxay u taagnaayeen inay ilaaliyaan doorashada oo ay ka shaqeeyaan waayo waxyaabo badan ayaa meesha ka jira oo muxuu ahaayey oo laaluusha iyo isdabamarin marka in sanduuqyada la dul istaago la dul fadhiisto muraaqibiin la noqdo ayaa loo baahan yahay inta badan dadka dibadaha ka taga waxa weeye markay meesha tagaan dadku gudaha jira inta badan ma yaqaanaan marka aad iyo aad bay ayay ugu hawlan yihiin sidii aan loo laalushin marka waxaan boorinayaa oo aan jeclahay in intii tagayso ay si soo diiwaan gelisa si meesha looga hawlgalo waanu ognahay adduunyada meel kasta maanta waa laga hadalhayaa Somaliland sababtuna waxa weeyaan dad dhabka tahay Soomaalinimada ayaa meesha gacanta ku haya oo halgankana ka qayb qaatay waana xisbiga kulmiye haddaan ka soo bilaabo Axmed Siraayo Maxamed Kaahin oo imika gudoomiyaha iyo madaxweynaha waqtigan imika jooga intaasiba waa intii u hurtay naftooda weeyaan sababtay in ay Somaliland lugaheeda isku taagto waana iyaga weeyaan wala filayaa in ay Somaliland ka dhigaan wadan kamida wadannada caalamka taasoo ku soo ururinaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maasid egsafir sulub wasay waxa haddana aan idinku dhiibayaa shakhsi aad noola soo shaqeeyay raggii tacabka xisbiga kulmiye soo geliyay ka mid ahaa waa intaan weli gudeeda u gelin jamhuuriyadda Soomaaliland lafteeda way idin dambaysaa waxa weeyaan tahar oo ay dhinaca kalena tacsi ay ku timid oo leenahay sameeyay ilaahay saadiqaha ka siiyo idinkuna u duceeyaa marxumadan ilaahay u naxariisto soo dhow maxamed nuur laakiin tahar bal wada dhaqana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا دمانت. الله خالقا سواء عميري حفلة لانت كلمية نروي عنكرهم هذا لنا يبدو إذا كلمية وبدوكي ومغيب حقاي إبراهيم سفيرك أنا شربت صاحبي أحمد محمود ليل آدم ليلا وعن إلى وقته أسلمت يعني صوت ناي يقولوا يقولوا بأحمد محمود مدار السؤالين وحد سؤال جميع كم إذا حقيقة سفارته في الفرعون مي يعني عبد المي ورجع اسميه عبد الرحيم واني نادو في الفرعون حقيقة سفارته هذه المفروض على عبد الرحيم هذه هذه سلام يا دمانتي وضياشة كسوقين قليل دميرة حفلة كلمية وحفلة بلان كنتي وسونا فلوس عليكم. أنا أقول حنديني من البعض وحنديني من سلاسلي يعني وحاي سوء الجسد والشعري يعني أخيان ويعني جيري إلى إن حديثنا هو ربيع يعني حاسكي قاعد تقولي أيضا جيريوتي وبعدها كانوا كواسناي أو يلا يلا أساس في عن لا إن حديثنا هو ربيع
waxaan noqonayaa arbacada haddii ilaahay haddii laftu baaqi noqoto dalka ku noqonayaa sidaa la sheegay dalku wuxuu soo maray taariikh dheer iyo halgan dheer buu soo maro dhowr iyo 40 sano ayuu soo maray ilaa 81 ilaa maanta halgankii muu dhammaanay wuu socdaa qofka isla halgankii wuu dhammaadayo maanta ugu daray maanta ugu daray doorashadani way ka duwan tahay doorashooyinka hore way ka duwan tahay la jaad ma aha badan waqti ma aha وقت doorashadani la waqti ma aha waxaan leeyahay la jaad maaha doorashooyinka hore waqtiga ay ku soo beegatay waqtiyadii hore way ka duwan tahay Somaliland dagaal baa lagu soo qaaday cid iyo nula baa lagu soo qaaday Soomaali oo dhan baa kusoo sugeen joogta dowladda waaweyn baa kusoo duulay lugta in la jiido in la ciifiyo Somaliland aanay hor socon haddii aanay jirin oo aanay hoggaanka hayn madaxweynaha maanta taageeriya tiimkiisa maanta haddii aanay hayn oo dagaal u jiri dhigin mid siyaasadeed iyo mid xabadeedba maanta halkan wayna xafidayneen hargeysana laguma xafidayn waa buruufnakaas waa loo jiri dhigay meel wanaagsan bay maraysaa maanta doorashadu waxay ku suura gashay inay dhacdo dagaalkii siyaasadda iyo kii xabaddu labadaba lagu guulaysto dagaalkii siyaasadda ee ah inaan Somaliland la ictiraafin sidii safiirku sheegay halgan dheer ku soo maray inta adduunka dhan baa dagaalnaya la galay inaan la ictiraafin imika almost way state inta ay dagaalkaas socday maanta sidaas safiirku sheegay wiiga soo socda ama labada wiiga soo socda waa proof ictiraafkii yahay dagaal dheer iyo halgan dheer dabadeed arrinkaa waa lagu guulaystay waxaana ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi iyo tiimkiisa dowladda hogaamiya xusbiga kulmiyeenu mar labaad soo noqdo dagaal adag baa lagula jira xusbiga kulmiyeenu soo noqdo doorashadan dagaal adag baa lagula jira waxaa loo baahan yahay in dagaalkaa laga qayb qaato oo qurbajoogta ka qayb qaadataan af iyo adin iyo maal intaba inaad ka qayb qaadataan reer kulmiyo ayaa loo baahan yahay qof cid waliba faamiligiisa wuxuu jooga qof waliba wuxuu jooga dalkii wax kale hadduu kari waayo inuu ku booriyo inay codka bixiyaan oo isu taagaan oo siyaan codka kulmiya waxaa loo baahan yahay in ay tagaan muraaqibiintii ilaalin lahaa sida uu sheegay hore liilan waxaan leeyahay sulub in tigrada la goosto oo dalkii la tago oo hawsha doorashada laga qayb qaato rag iyo dumarba baahi adag way loo baahan yahay baahi taala loo baahan weeye oo aynu qaabno dadka gudaha aynu qaabno oo dhig cusub iyo dhiirigelinba aynu siino ayaa loo baahan yahay taasina waa mid runtii inta ugu badan tegi kartaa in ay abaabul aynu galo taana ku dhaafayaa waxaan leeyahay kulmiye loo baqan maayo dagaal kastaa soo maray dagaal kastaa soo maro adag rag adag oo halka ka adag maanta jira soo maray ayaa u dhabarka u dhigay ku guulaystay insha Allah احترافنا وممكن تعرف بوليستين إننا لو بخر مايو وهالجميع دورشة وقرية وبوليستين
mahadsanid maxamed waxa aan hadda kusoo dhaweynayaa guddoomiyihii guud ee garabka haweenka ee xisbiga kulmiye waayo fadxiyo siciid axmed soo dhawowa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت شرفتا واحد صوتين كشوان السلام يا مرت اسلام كان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddidii kasoo shaqeysay xafladan maanta ee suuragelisay inaan xaggan isugu imaano. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gaar ahaan haweenkii kulmiye ee reer Oslo. waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin. hadda kadib waxaan salaamayaa xisbiga kulmiye ee laantiisa Norway madaxda ilaa madaxda sawdayhiin oo dhan aad baan u salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa xisbiga kulmiye meel kastuu joogo dal iyo dibadba. waxaan u rajeynayaa guul doorashada inta soo socota insha Allah. hadalka intii badnayd waa la yiri kuma noqonayo. maanta waxaan u joognaa inaan muujino taageeradeena xisbiga kulmiye haddii aan nahay qurba joogta reer Norway. aan leenahay mar dambe inaan ku soo noqono xukunka insha Allah oo musaqiixina uu hogaamiyo. in badan odhan maayo hadalkayga waan soo koobayaa. waxaan leeyahay maanta doorashadan aad bay u adag tahay siduu inanka walaalkay ka dhawaajiyey. waa doorasho aad u xasaasi badan. taana waxaa keenay in aan dal aan noqonay isku filan hore u socda ka muuqda geeska Afrika oo nin walba uu danaynayo. taasaa keentay inaan cadow badan aan yeelano oo la rabo inaan dib naloo celiyo. taana ma dhacaysaan leeyahay. marka hogaankan haysano maanta ee Muuse Bixi Cabdina taariikhdiisana dee cid walba ka dhereegsanta waa la garanayaa. nin garanaya dalka hawl badan u soo qabtay soo asaasay karti leh ana looga baqay. marka guul baan u rajeynayaa xisbiga kulmiye haddii la yiraahdo. anigu waxaan la hadlay marka ugu horeysa dadka ay qusayso maanta doorashada ee dalkii jooga. waxaan leeyahay maanta waa xasaasi waa masayrkiini weeyaan. Somaliland haddaan rabno inaan guul horumar sida adduunyada kale dalalka kale inaan ka qayb galno waa xisbiga kulmiye aan leeyahay. xisbiga kulmiye odayaa insha Allah. sidaan cadowga uga raysano uga badino waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waxaa ku jirta masayrkii caruurteena kuwa soo socda ayaa ku jira. xisbiga kulmiye odayaa leeyahay. waxaan kaloo la hadlayaa in yar mucaaradka oo mar walba yidhaahda isbedel baan rabnaa, isbedel baan doonaynaa. marka isbedelka ay doonayaan anigu ma fahansani. ma waxay rabaan geedka marka aad xididka loo jaro aad rabtid geed kale aad ku beertid. marka waxaan leeyahay Somaliland hadday rabaan inay xukunka loo socdo loo horumariyo uma baahna isbedel. Somaliland looma cabsoonayo. marka kuwan mucaaradka ee hadda imika jooga mucaaradka isku sheegaya waa kuwii xukuumadii hore soo joogay. wajiyo cusub nooma aha. iyagoo xil loo dhiibtay ay xilkii kasoo bixi waayeen ay haddana xusbi kale ay ku wareegeen aan leeyahay. marka waxay sheegayaan ayaa badsaya. qofku markuu xukunka meeshuu joogo haddii waxba uu ka qaban waayo oo dadkii ula shaqayn waaye ay waxba kusoo kordhin waayo horumar uu keeni waayo oo markii laga dejiyo uu yiraahdo xusbi mucaarada galaya dee waxba islama hayaan sheeg waxba islama hayo. marka xusbiga kulmiye waxaan leeyahay guul baan leeyahay. shacabka Somaliland waxaan leeyahay xusbiga kulmiye u codeeya.
وما سكت. mahadsanid gudoomiye farxiya siciid gudoomiyaha guud ee laanta Norway garabka haweenka kala reebaya waxaan isla raacinayaa gudoomiyaha saddexda gobol isna oo nala jooga caawa waxa weeye Cismaan waa abwaan waxa weeye siyaasi waa macallin ku soo dhawaysa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore si kaliya laba salaamay dhammaan xubnaha qaaliga iyo dumarkii dhalinyarada xafladan bilan inoo soo abaabulay waan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaadka waxaan salaam kaliya laba oo diiran iyo aan idinka sidaa xubnihii gobolada xisbiga kulmiye oo idin leh waa idinla joognaa xafladda waa idinla joognaayo hambalyo wax badan odhan maayo oo waa la yidhi wixii la odhan lahaa waxa anuun anigu leeyahay horta saddex waxaynu leedahay afrika dimuqraadiyadda aynu qaadanay saddex xisbi oo qaran baynu leenahay laakiin maanta marxaladda aynu ku jirno waxa ay ina faraysaa oo ay bulshadii leedahay kulmiye kama maarmi karo dadkuna kama maarmi karo dalkuna kama maarmi karo waayo diricyadii nafahoodu huray dalkani aakhira u galay danabyadii ka hadhay ayaa kulmiye daadihinaya talabaad doorashadii laga maagi jiray duruufa lagu xeeri jiray dawarsigii shisheeyaha kulmiye ayaa degdeg u qabtay waa talabaad waa ta saddexaad ee dadku kama maarmi karo kulmiye kama maarmi karo doorashadii oo iyadana aynu hadda ognahay inay dabka saaran tahay muusana diyaaradiisa dambe ku keenayo ayaa iyaduna aynaan uga maarmi karin kulmiye kama maarmi karo kulmiye iyo madaxweynaha in mar labaad loogu digo aad baad u salaamatay مثلا اسمه وليد الهواء أبواب وأنا فريد بشجاعة ديري تاريخي سوماليلاند أو توتون بين رفضنا وحوي وقت إنه كل عمره هاي دليرتي وفوق رجيت شيء شو قلي أي عاو إنه هل كاتو هاي سنة وتاريخ سويال كده لو بهي هاي لو قالوا وحين رفع يا أحمد محمد مدر وكم أولياشا ذلك النوري سياسي أحد الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلو ما مغليسة اللي فعليا مرة بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan runtii bariyahan hadda usoo jeedinayaa guddida xisbiga ee dalka Norway sida magaalada Oslo xafladan iyadaa caawa inoo soo qabanqaabiyey ujeedaduna ay tahay inaan u muujino haddaynu nahay warbajooggii xisbiga kulmiye inaynu taageersannahay xisbigeenna intii tegi kartaana ay tegi doonto oo laga rabo inay tagaan intii aan tegay karaynina wixii kale ee
diyaana kuu roon yahay hawsha iyada ay kaga qaybgelayaan diyaariyaan waxaa intaa inoo dheer way ku daraynaa waxay tahay halganka ay jamhuuriyadda somalilan maanta soo martay ee halkan ay gaadhay halka maanta ay joogto ay ku soo gaadhay waa taariikh dheer oo qiyaastii 40 sano maanta laga joogo maray SNM ahayd iyo maray dal la yidhaah somalilan oo halkanka ay u soo galeen ay geliyeen maantana ay taagan tahay gabagabadii in dalkaa isaga ah ee hawshaa loo soo galay ictiraafkeedii soo muuqdo waxay maanta doorashadan ay somalilan galaysaa ay la mid tahay iyadoo ka mid halgankii lagu soo jiray muddada dheer waa gabagabadiisii oo ah dal aan halgan loo soo maray oo dunidu iska aydha tirtay iyaga waxay u jeedaane iyaduse ka hadhi weyday inay xaqiijiso jiritaankeeda oo ay maanta ula saaran tahay qarka inay hesho biidnillaahi kariim aqoonsigeedii oo buuxa waxaynu u baahannahay dadku iskuma jireen waxa weeye dalka waa la wada leeyahay saddex xisbi baa tartamaya 3 madaxweyneana u sharaxan innagu madaxweynaha aynu wadana waa muuse biixi cabdi oo aynu doonayno hawsha uu galay ee ah inuu yadaanka soo saaro wixii aynu u soo halgamaynay oo ah ictiraaf buuxa maanta aynu arkayno inuu hawshaas xilkasnimo la gutay ayaamaha soo socdana insha allahu biidnaahi kariim aynu maqli doono iyadoo adduunyadu ay ku dhawaaqday dowladda etoobiyana ay tahay horseedkii iyadoo danaheeda ka arkaysa horseedkii ictiraafka somalilan waxaan leeyahay hadalkii kusoo gabagabeynayaa hadalkaama bulsho baa la yidhi somalilan ha guulaysato xisbiga kulmiyana ha guulaysato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معسلي أحمد قضي أحمد بن النظر. waxaan haddana inoogu dhiibayaa oday yaroo isagana aydan aad u aqoon oo oday mataan waan doonaya caawa inuu weedhiisa ka dhiibto goobta السلام عليكم ما تسمعوا كل كمان ودي مرة يا من بركة دينا دور مراد النساء والأولاد دور حسين ذات الموتى كاملة ودين يصير في حال بركة ولا يا حضرنا markaa hore kulmiyana wuu dhaqaaqayaa kulmiyana maanta kii wuu horiyey maaha kulmiya hore buu u soo baxay markaa haddii la yidhaahdo guusha isagaa leh markaa anugu guntidii baan arkay qabanqaabiyaasha anugu meesha ugu soo dhaweyno ayaan meesha ugu talagalnay marka hore aad baad wanaagsansa kulmiyana wuu guulaysanaya insha allah أيه ولدي احتالك أيه بدي كوباقي يا وحكي لي وضدني إلي وحوجا أن الشاب غير بهنتين أيه فنانيتا عبد الرشيد علي حماري إيوه كل حديثة صاحبي حوجا ولا كيف فنان عبدو
adiga heestada way dambaysaa أنا بس أنا baaba'da iyo qarannimada Soomaaliland oo guuleysata waxaan leeyahay qarannimadii Soomaaliland ayaa weerar lagu soo qaaday way fadhiga laga kacaa way lagu guuleystaa hadii la ka dhigayo doorashada laga qayb galaa si ay ugu guuleysano xisbiga kulmiye u guuleysto inta haddaan dhaafo reer baan ka dhashay la yiraahdo habar jeclo wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray Michael Maryama nin Kristiyan buu ahaa dabeedna waxaa la yidhi Michael oo maad muslimiinta diinta islaamka qaadat wuxuu yidhi nin weyn noqnoqosho looga wanaagsan waxaan leeyahay habar jeclo guurguur looga wanaagsan habar jeclo waa kulmiyana waa habar jeclo waa kulmiya waan ku celinayaa kulmiyana waa habar jeclo kuwa ka dhawaaqay meesha la yiraahdo ceelaf weyn ma matalaan habar jeclo ayaan leeyahay waxaan leeyahay dalka difaaciisa iyo jiritaankiisa iyo aqoonsigiisa intaba waxa haddii ilaahay ka dhigayo aynu ku aamini karnaa xisbiga kulmiye iyo mujaahidiintii u soo halgantay ee dhiigooda u shubay waryaahe muuse biixi waa la yaqaanaa maalintiisa محمد كاين والله يقال مالنتيسا والعلم مالنتي بو ليهي يا غرانايا حسبك وطني يا غرانايا مالين ليهي waxaan ku celinayaa habar jeclo mar labaad baan ku celinayaa waxaan leeyahay legacy uu ka tagay Axmed Siilaayo isagoo nool in la baabiyo maaha waxaan leeyahay habar jeclo waa kulliye waan ku celinayaa waa kulliye waa guuleysanaynaa annagu weliba reer daahir baana la yidhaahdaa saafleykana waa nala xidhiidhnaa waxaa naloo sheegay inaynu guuleysanayno guul baan leeyahay Somaliland guul kulliye ayaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يا رب ما تنهي waxaan halkan uga yeerayaa nin aad loola soo shaqeeyey oo hawl badan nala soo qabtay Norwayna inta badan aad si fiican uga taqaanaan waxa weeyaan xildhibaan Siciid Maxamed Amiin oo aan halkan si gaar ah uga mahadcelinayo iyo waxqabadkeedana inta badan ama abaal ugu hayno oo ninkii nala soo dadaalay ahaa soo dhowsaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت إلهي أيام هذا هل كان اسمك كلي مالتين وحن مرة ورا مهرة أيام dadkii ka soo shaqeeyay madashan quruxda badan leh dumar iyo ragba waxa leeyahay waa mahadsantihiin anigu kale hadalkii iska koobnaanayaa waxaan hambalyaynayaa guddida kulmiye oo runtii muujiyey dadaal badan sida xafladanu u qabsoonto waxaan idin sheegayaa horta anigu xildhibaan markaan halkan ahay waa inaan noqdo qof dhexdhexaad ah oo Somaliland ay u siman tahay فعال دبات من جد kulmiye guul baan u rajaynayaa wadani guul baan u rajaynayaa urad guul baan u rajaynayaa waxaynu u baahannahay doorashadu markay dhammaato qofkii laga helo iyo kii helaba in si fiican la isugu handeeyaa ayaa wanaagsan
dimuqraadiyaddu taasay ku jirtaa waxaan rajaynayaa in ay ballan qaadaan madaxda xisbiyadu in ay arrintaa ka dhammaynayaan waana imika in laga qoro commissionku waa inay warqad ka qoraan saddexda musharaxba in ay aqbalayaan doorashadu markay dhacdo walaalayaal hadalkayga waa soo koobayaa xaflad fiican baa idiin socotay muusig fiican baa idiin socday waan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سعيد محمد أمين حلو سعيد محمد waxaan filayaa siciidu kalluunta halka soo dhex tuurtayo maadaama aan ahay afhayeenkii laanta Norway ee xisbiga kulmiye ballanqaadkii aad sheegtay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga kuwa dambe ee aad u tegi doontana xisbiyada kalena aad intaa ka soo ballanqaadi doonto anigoo shakhsi ayaa ballan qaadaya madaxweynaha afkiisa ku hadlaya afka xisbiga ku hadlaya afka madaxweyne ku-xigeenka ku hadlaya afka guddoomiyaha xisbiga ku hadlaya annaga waa naga ballan haddiina laga helo kursiga sharaf baan ku wareejinaynaa كجود waxaa isaguna inala fadhiya oo goobta inoo jooga guddoomiyihii hore ee jaamiyadda laantan Somaliland ee Oslo cali oo isna laba kelmadood yidhaahdo ay ku habboon tahay goobta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير كلمية والسلام يا سلام كديب كل odayaal badan baa iga horeeyay oo dalkina iga dambeeyay warbixin badan ay siiyay horta reer kulmiyo waxaad ogaataan in kulmiye guulaysanayo haddii ilaahay ka dhigo markaan ka yimid xisaabtu madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba waa isugu fadhiday markaa waxaan leeyahay shakiina dadkan guuguuraya iyo dadkan yayaacaya waxba shakiyin ka gelin inagu waxaynu nahay xusbi waayaaragaynu nahay in badan baynu soo jirnay xukunkaynu soo haynay iminkana waxaynu nahay xusbi xaakimkii baynu nahay qof markuu waayaarag yahay ee in badan joogay iyo qof markuu cusub yahay ee doonaya in kursigu karo wuu kala saqadh badan yahay markaa saqadha iyo boodboodkan iyo buuqan waxbaa ka shakiina iminkana waxaa laga yaabaa dad badan oo kulmiye jooga inay bidi noqdaan intaan doorasho dhicin ee wadani noqdaan reer wadani xagga usoo wareegaan markaa siyaasaddu fartay doontay qoftaa markaa inaad la socotaan marba xaaladda ay marayso waxaan arkayay dad badan oo leh bariga iminka kulmiye aad buu ugu liitaa waxaan idiin sheegayaa kulmiye bariga isagaa ku xoog badnaanaya isagaana hogaamin doona waxaan arkayaa guddidii la magacaabay ee kulmiye ee ololaha waa guddidii ku habboonad bay ahayd waa guddidii aan isleeyahay dadka oo bariga joogo oo dhan waa guddi midayn karta kulmiyana runtii u keeni kartaa guul markaa waxaan leeyahay hashakiina kulmiyana waa guulaysanayaa sida odayaashii ka horeeya sheegeen dalka waa la garanayaa marxaladihii uu soo maray cidda ka saari kartana waa la garanayaa markaa madaxweynaha muuse bixina waa guulaysanayaa kulmiyana waa guulaysanayaa inagoo haddaynu nahay gurbajoog waxayna ka baahan yahay qof walba halkuu joogo inuu ka hawlgalo waayo doorasho dhacaysa doorasho adag baa dhacaysa doorashada adagina kale waxay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay dad badan baa yidhaahdaa imika ay ka mid ahaa xildhibaanku haddii doorashadu dhacdo waa in saddexda masharax laga qoraa ballanqaad inay aqbali doonaan waxaan idiin sheegayaa qof waliba waa ku qasban yahay inuu ka aqbalo cidina kursiga xoog ku kori kari mayso cidina xoog ku haysan kari mayso Somaliland qof aan ogolayn inuu codeeyo kursi kori kari maayo marka doorasho wanaagsan baa noo dhacaysa waxba ha baqina shakiina wax dibi ma jirta dalkuna runtii meel fiican buu marayay aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad mahadsantahay gudoomiye cali waxaan filayaa
وحوجا مسوق بجوديو ويلي لورنا هو صار ما هي عد سجيها الله والله يعني حاليا عبد الله مبارك هو مصص عطايا اللي يستأذون سابقين يستأذون وين بس الله يا فيصل ودي فيصل